عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال maanta oo ay tahay taariikhda 18 bisha saddexaad 2022 ayaa Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan 15 jirka ayaa maanta wuxuu bineeyay booskii iskaabulnimada. Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa ku faraxsan inay nolol cusub bilaabo. Noloshii hore ee iskaabulnimada iyo nolosha maanta waa mid u dhaxayso farqi aad u weyn. Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan aan maanta la soo koobi karin farxadiisa ayaa waqti badan habniyay inuu ka baxo booska iskaabulada. Allaha isku dhaqo ubad kheyr qabo Allah kala siiyo. Cabdirasaaq oo hamnigiisu yahay inuu gaaro reerkiisa boqoradiisa Raxiimo Ibraahim Cismaan.